Okay, السلام عليكم. sideen wada ogsoonnahayba sanadkii u dambeeyay ama kimika labadii sano u dambeeyay waxa aad u soo badanaya AI toolska ama muxuu ahaayay artificial intelligence toolska maaragtay dadka u automate gareynaya shaqadoodii iyo waxyaabihii ay qabanayeen. haddaba su-aasha ugu badan ay igu soo noqnoqotaa waxa weeyaan AI gu meesha ma ka saari doonaa software developerski ama software developerski muxuu ahaayay shirkadaha u shaqaynayay AI gu ma replace gareyn doonaa. So qof walbaaba opinion buu leeyahay, and there's a lot of people different takes ka qaatay ama opinion gooniya ka bixiya ama si qofba dhinac buu ka eegaya. So aniga dhinacan ka eegaya still waxa weeyaan ama opinion kan ka haystaa AI gu in the upcoming years ma bedeli doono software developerska, laakiin workforceka waxbuu hoos u dhigayaa oo junior developerska iyo waxyaabaha uu saameynaya, laakiin haddana wuxuu noqon doonaa tool ay isticmaalaan developersku si ay shaqadoodii maaragtay u automate gareeyaan oo waxyaabo badan oo waqti ku qaadan jiray maaragtay si degdeg ah ay u sameeyaan. So saameyn way jiraysaa oo muxuu ahaayay shaqaalaha qaar baa hoos u dhacaya oo dadkii waxyaabaha very basic ah qaban jiray oo kale muxuu ahaayay AI toolska qaban doona, laakiin software developerska guud ahaan ama shaqadooda meesha kama saari doona. Why there is always a need for a human factor. waxa loo baahan yahay mar walba maskaxda bini aadamka qaybtii maaragtay decisionska siinaysay ee go'aanada siinaysay ChatGPT iyo waxyaabaha structure-kii wax walba u dejinaysay. marka in the upcoming years waxaan aaminsanahay in AI gu tool uu noqon doono ay dadku isticmaalaan oo ay shaqadooda ku automate gareeyaan, laakiin kama saari doono meesha software developers.